وحتليها بوليس كان إساق وأفدين لليلة الرماها بوليسها نين لا كساها أها ترى سمستر علىها نين لقيو وسنجيل دارودها أها ترى في كذا مجرتين وقاعدين أها حدرتين يكون إنسان برافعنا وعن مركب بدنا كله حساب درada Soomaaliya meesha ay ka jirto waa umada habar gidir kuwaasoo garan waayay cida ay ku calafka yihiin inay loyal u noqdaan kadibna uu madaxa ka goro Xasan Sheekh Maxamuud al-Hayaat soo booqday oo yaa kala qixiya sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho aniga igama qaldana sida ay siyaasadda ma jeerteen uga qaldaneen oo samarixaan uga qaldaneen oo si ogaadeen uga qaldaneen oo si dhulbaanta uga qaldaneen oo raxweyn danteeda u taqaan oo si abgaal uga qaldaneen only for habar gidir ay siyaasadda ka qaldan tahay waxaan uga qaldan tahay beesha habar gidir waa beesha kaliya ee loogaga sheekeeyo wax aan jirin oo khiyaaliya degmo iyo baraysaa ka joogaan 70 jirka talada xun ayay waxay doonayaan in Soomaali oo kala diray oo ku tiro eedooda al-cadaala hadlay Puntland waxba kama jiraan waa wariye maskiina fiqiya hadlay war fiqiyo wariye matasha ma waxa tahay wasaaradda arrimaha gudaha mise waxa tahay wasaaradda arrimaha dibadda waligay waxaan arkin marka qofka la jaanjaamo la duleeyo laga adkaado waqooyi koonfur muda fiqiyo Soomaaliland ma Ethiopia ma Kenya ma Switzerland ba arrimaha dibadda miya waxa ku geeyay wasiirka ma jeerteen arrimaha gudaha abdheyd waaye faahim waaye shaqadiisa uu yaqaan eedna ma galay sida awgeed waxaan rabaa inaan ku sheego Soomaaliya waa la qeybsay waana kala tagtay boqolkiiba boqol dawladda Kenya waxay taageeraysaa Axmed Madoobe waxaana sabab u ah 70 jir tala xun aeroboorka waxaan ka dhistow hayaa ciidanka waxaan geystow hayaa wiilkayga taliyaha ciidanka niman abgaalahayn taliya ciidan ma geeyo safaaradaha unuka iskale dadka maaliyadan ka qaado haynaa 3,000 wiilo habar gidirna waa ruqsayna qoor sanadan ugu dara dagaal ama ha dagaalina sanad kalan ugu dara dagaal ama ha daga fiiri umada in la xoro oo ceelka ay biyaha ka cabi lahayeen hal nin oo la hortaagnaado waxay keentaa in ceelkaas la isku dagaalo oo dhig ku daato 2 sano oo Muuse Biixi ku darsaday yaa gabdhihii Isaaq iyo dadka Isaaq qiimo beeleen chance markii intuusan Muuse Biixi 2 sano ku darsan Isaaq baal saray ahaayeen 2 sano loogu daray ayaa qadka ka riday galmudug sanada loogu daray hadda mandate-ka galmudug wuxuu yahay mandate-ka galmudug hadda waxa loo isticmaalaa aeroboorkan dhisa war ilaahan kugu dhaarshay aeroboorkan dhisaynaayo aeroboor shaqadiisa ii socda maamul goboleed mandate muu noqon karaa fiiri Xasan sabarka habar gidir ayuu si kasta u garaacaya wuxuu maal iyo waqti iyo naf ku bixinaya sidii abgaal u heshii lahaayeen laakiin lisaan xaalka ma fahmayno ogaadeen ma fiicna siciidani saas waaye waxba nagama gelin annaka habar gidir Isaaq iyo ma jirtan culaadinteed walaalayaal waxba nagama gelin sababta kalifaysa marka idin sheega hadda ka hor baa nin shir soo fariistay waa 50 jir 60 jir inta u dhaxaysa jufa kamida jufadii shirayso soo dhax fariistay waa hadlay waxay sayta maaha haday saahayna waa tahay hogaanka saaha laga dhigo dadkii fiiriyay maxaa heeda liiri 20 jirkaaga maxaa qaba jirtay beera fala jiri maxaa markii dambe qaba jirtay sargaal militariyan aha xagee joogi jirtay xamaraan joogi jiray waa gartay warma taqaanin ma naqaan dagaalkii duumaale xagee joogtay ma ogi abaartii daba xagee joogtay xagar dheer iyo daba dheer waxba ma qaban qaaraankii dii ilaahay ku reeyay meesha ka dhacay joogtay il cadeey waxba kama qaban 300 mar dagaal galnay wixii hebel iyo hebel meeshii ku dhimanayeen waliga ma ka gar naqday waxaas wax ma ka qabatay dulmigii dhacay ma ogeed ma hal maalin kama qayb gelin hadda maxaa rabtaa inaa cidda hogaan u noqdo warnaga hogaan u noqo meesii waxaan ka wadaa hogaanka habar gidir nimanka maantay ah
اسكول وما دسين هل اسكول مالين ديق وما شبين مالين وما سو هالجمين وقتنا ما يسنجلين عالم كمجرو لما تنجر بوكسر نغنايا وقياسية هاي نكان بوكسر كوكو عيه تضبي تبنجر أرد كوكو عيه لح تبنجر شن تبنجر فلسفة ويسياسة كوكو عيه كونتنجر لحدنجر هل مر اسكا سو بخايا هبرجد مسو طليا قدوميها هبرجد ودورني مقعيس شروع علينا محو سمي مالنا وحاسكي سو هيسي قردي فكرت فقي ومحاس وقبتي لا بيا خاني هيستوريغا ما ترى هيستوريغا ما ادرك يا كدخلي ورهي اودوا waxaan la shaqeeyay Xasan Sheekh Maxamuud warhaye kii kalow saabrow ingiriiska ka imid war dadkaan ma ka soo fikirteen maya waxa laga soo maray ma ogtiin maya Ahmed Madoobe 20 jirkiisii wuxuu u halgamayay in ogaadeen ay dhul yeeshaan 30 jirkiisii wuxuu u halgamayay in ogaadeen ay dhul yeeshaan 40 jirkiisii wuxuu u dhaawacmayay in ogaadeen ay dhul yeeshaan 50 jirkiisii wuxuu u dagaalamayay in ogaadeen ay qiimo yeeshaan 60 jirkiisii wuxuu gaaray in ogaadeen ay baar sare noqdaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka noqdaan this is steps way aydiid muxuu ahaa 69kii wuxuu u sacyinayay inuu Soomaaliya wax ka noqdo 70kii waa la xiray ilaa 75kii waa xirnaa asagoo ciil qabo soo baxay oo waa la canaaday safiir hindiya laga dhigay asagoo calayso de waqtigiisa halgan u ahaa ismaan xasan cali cad taseen ninka la dhihi jiray gorgor waa maskax beelay abukaati geelle waa u dhintay asoo tiibisho qaba shandiille Itoobiya lagu dilay shabeel asoo halgamayo u dhintay dooyaale asoo ciil qabo u dhintay ragaa shaqo soo qabsaday ragaasu waa naga dhinteen kuwa maanta noo jooga wax historia oo qabiilka ay gashteen kuma jirto waana sababta aan u dareen laanahay oon u garan laanahay qofku wuxuu maal gashado jeclaada nin baa geel oday baa duqoobay markaasuu wuxuu maqlay hal codkeeda oo yaqaano la gowracayo war waa maxay hashaas soo heblaayo maaha ha yaa gowracaya wiilkii Xuseenaha oo uu gowracaya islaan garabaha uu guursaday ayuu xafladeeda ku dhigaya adugu tabar ma hayo indhana ma hayo gacanta alla ku go waa niman caanaheeda dhaaya karoor ku camin gacanta alla ku go meeblaaya la gowraca uleh Xuseen Ciidid ayaa dhaxlay General Ciidid waana iibsaday ciidankii Baydhabo maragay marqaatay uleed waa inaan mid garaac mar rabo balse waxaan rabaa inaan dhaho qofku waxa qiimo uga fadhiya waxa uu ku soo tabcay oo ka soo fikiray inuu hogaamiyo sida awgeed waxaan rabaa inaan iraahdo umada habargedir waa inay dib ugu noqdaan ay goobaan 20 jir nin markuu ahaa macna lahaa 30 markuu jiray macna lahaa 40 markuu jiray macna lahaa 50 markuu jiray ugu xadiiska nabiga wuxuu yahay khayrukum fil jahiliyah khayrukum fil islam خياركم في الإسلام كوعدو كوغو غير بدنا حلقي جهلقة ودينتو ايسي جرين ايا إسلام كمركي لسو قلنا اوغو غيمة بدن مركا غبيل كاللأها كوا دادك اوغو غيمة بدنا اوغو غيسي سنة ايا مركا السياسة دا لقلنا اوغو معنا بدن حسن كان دقالو كجري افر بلاوتكي تاكولينتو اها دقالو دو كجري غيس كستو كو قلي غور نوروتي ما اغن ميلا اسكو حبادين يعني اسيغي ولا غيابا ميلا بدن اسكو حبادين سيدا اوغيد ولا ليال waxaan rabaa inaan ku sheego ma waxa habargedir isha u yeelana waa in dadka hogaanka u ah ay yihiin diaspora iskooleydu waa wax qof walba u barto inaad baratid cilmiga gynecology-ga oo xanuunka dumarka kama dhigna inaad siyaasi tahay maalmaha kamida ayaa ninkii milizanaw la dhihi jiray ayaa wuxuu isugu yeeray siyaasiyiin badan oo xanaaqsan oo siyaasiyiin sheeganaya shaqadaada maxay tahay هنيجا بيرها صوفشي أرد بيرها فل هذه شغالة محيتها جينيكولوجي أرد دمر كشغة هذه شغالة محيتها توبركلوز ودتك كده ويتي بشدة هذه شغالة محيتها وحاجة كلوميسي دي أرد كلون كتبوا هذه شغالة محيتها بايلوت دي دورها هو هذه شغالة محيتها فيل شغالة بني آدم وهجامين أمرات هجامين أمراتنا وإن غفك هجامين أمرات